madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa labada hogaamiye mucaarada xisbiyada wadani iyo ucid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo Faysal Cali Waraabe ku marti qaaday inay saaka 9 subaxnimo kulan ku yeeshaan xarunta madaxtooyada. madaxweyne Biixi ayaa qoraal uu soo qoray labada gudoomiye xisbi waxa uu ka dalbaday inay ka soo qayb galaan kulan saaka oo ku marti qaaday oo uu sheegay inuu doonayo in xal loogu helo khilaafka ka dhashay guddiga doorashooyinka iyo muddo kordhinta golaha guurtida. hase yeeshee labada gudoomiye xisbi Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye Ciro oo hore ugu gacan saydhay madaxweyne Biixi baaq afka ah oo uu soo jeediyay toddobaadkan gudihiisa ayaa waxa ay sidoo kale ku gacan saydheen fariintan qoraalka ah ee uu diray. baaqa madaxweyne Biixi ee la kulanka madaxda mucaaradka iyo diidmada Faysal iyo Ciro ayaa waxa ay ku soo beegmay iyadoo la filayo 18 bishan 12 ee aynu ku jirno magaalada Hargeysa ay yimaadaan wafdi culus oo ka socda beesha caalamka kuwaasi oo arrimaha doorashooyinka kala hadli doona ama si cadaadis ku saari doona xukuumadda iyo mucaaradka dalkaba.